kula weyn oo lagu maamuusayay sanad guurada koowaad ee garoonka Howlwadaag ayaa caawa lagu qabtay garoonkaas. laba koox oo ku kala ciyaaraysay magacyada Group A iyo Group B ayaa kulan xiiso badan ku yeeshay garoonka Howlwadaag. Group A waxaa kabtan u ahaa Ciise Axmed Cali oo loo yaqaano Ciise Chete. sidoo kale Group B waxaa kabtan u ahaa Cumar Maxamuud Maxamed. kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka garoonka Howlwadaag oo ugu horeeyay gudoomiyaha garoonkaasi Cabdulaahi Ciida. waxaana kulan ciyaareedkan u soo daawashatay taageerayaal fara badan oo ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Marka, bahda isboortiga degmada iyo ciyaartoydii hore iyo xiriirka kubadda cagta degmada Marka. labadan kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar wanaag ay ku dhehneed oo ay ku qanceen taageerayaasha ku sugnaa garoonka. ugu dambeyn waxa ay ku soo idlaatay ciyaarta 4-1 oo ay guusha ku raacday kooxda ku ciyaaraysay magaca Group B, sidaasna ay ku hanatay koobka. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Marka Mahad Qadar oo goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay maamulka garoonka iyo sidoo kale dhammaan ciyaartoyda ka soo qayb gashay kulanka. waxaan marka hore u mahadcelinaa horta maamulka garoonka fursadka xaafadda Howlwadaag Cabdulaahi Ciid Maxamed Cali Faarax iyo Garoy oo ah maamulkii garoonkan quruxda badan ka shaqeeyay iyo horumarkan ka shaqeeyay. waxaa kale aan u hambaleynayaa dhammaan kooxaha isku taxaluujiyay in عاري بلاوده إلا سنة جوري عرفتي وقتي وبلاوده كرونك لكوسدي إلا يهدنا ما عرفت تانكو عياري وموجي سنة جوري ما عرفتي كرونك مناسبة ده كوب معنا خيمة بدل كأنه ما عرفت هذا وما هدعنا لوضع كحد دكان حافظ روسي تنكلم حوم مرعنا بدوينا شرفتنا كسوق قبلي ما عرفت ترتكان intaan socday maaragtay munaasabadan koob ana koobka maaragtay furitaanka bilowgii furitaanka garoonka ilaa dhamaadka garoonka ah. marka aad u mahadcelinaa waxaan u mahadcelinaa dhammaan mas'uulkii Rasmi TV iyo mas'uuliyiintii maaragtay qabanqaabiyeen sida Cabdimaalik oo kale waxa waaye ninka maamulka uu taray maanta intaan qabanqaabada waxaan dhan sameeyay isna aad u mahadcelinaa dhammaan kooxaha oo meesha ka taqabalay sidoo kale igina mahadcelinaa insha Allah waxaan leeyahay garoonkan oo sanad ka hor la daafuray ayaa ah garoomada ugu wanaagsan ee ku yaala magaalada Marka, waana garoon ay si weyn ay ugu riyaaqeen bahda ciyaaraha degmada Marka.